كمية مشاريع أمي سنة نقص على عاصمة الصومال أنا هرجيسة مشروعا هو مشروع عمال جلسي كوكولا أفريكا فاونديشن شركة الله يقانا وحنا قعدت إنه وجه إساء تيرا سوليدالي وكمباني إيطاليانية مشروعا قرشي سوحوي إنه لسه أفر بركضات iyo piping koodii oo ilaa 260 kilomitir ah afar barkadood la dhisay saddex kamid waxay ka dhisan yihiin Maxamuud Haybi Axmed Dagax xaafadaha Maxamuud Haybi Axmed Dagax ina naxar masalaha singaha saddexda barkadood iminka gabagabay ku dhow yihiin sayna wada aragnay oo dhamaad bishii afraad ee sanadkana inay dhamaadaan ku rajo weynahay halka kale ku taala Mansour area ama Gantaalahu ayaduna muddo yar ka dhameyn doonto ilaa 15 cisho ama bil ugu badnaan ay ka dhameyn doonto xarunta biyo soo saarka lagu keenayay Hargeysa kaydka biyaha Hargeysa Chinese ko dhisay waa 23 kilomitir waa dhismaha pipe-ku 23 maanta waxa yaani ka harsan waxa weeyaan wax ku dhow 900 mitir ayaa 23 kilomitir ka dhisan hadaynu imika joogno structure-kan aan joogno kale waxa weeyaan waa chamber-isku iyaguna hawsha ugu adag ahayd runtii 27 xabay haayeen marka maanta waxaan bilaabnay waa 3 xabo oo waliba chamber-iska noocooda ku ugu yaryara marka 24 ayaa imika dhamaaday waxa gacanta lagu sii hayaana waxa weeye waxay u dhiman yihiin waxa weeyaan laba imika inta shaqadu ka socotaa iyo dhowr xabo dabool ku dhiman yahay saro kalaata ay lu iska baaba marka dadkeena waxaan u sheegaynaa inaanay project-kan ahayn project ay lu looran karo way iska baabadee ay tahay project weyn. First of all, I wanted to thank the government of Somaliland as well, the peoples of Somaliland, especially for those who are living from Gadable up to Boqoli Kunto. faraxsanahay shaqooyinka ay wada qabteen dhamaantood maareeyaha wakaaladda oo isaguna runtii dardar cusub ku soo kordhiyay muddadii uu xilka hayay oo aanu badan u malaynaya inaanay badnayn sanad ka yar tahay iyo dhammaan xukuumadda iyo madaxweynaha oo u heelana inay magaalada caasimadii biyo hesho waxaan idin sheegayaa bal aan kala yara cadeeyo mashruucan Gedeble iyo Horhaadi iyo ka soo mashruuc faaya badan oo shaqaynaya oo shaqooyinkii intii loo talagalay si macna leh ay shaqadiisii u wada socoto waana mashruuc hadda biyaha wax weyn ka qabanaya Somaliland iyo Hargeysa waqtiga aanu isleenahay wuu soo gaarayaan waa waqti aad u dhow waanu tagi doonaa goobta hadda taangiyadii biyaha loogu talagalayna waa kuwan hadda dhamaanaya arinta xuba weynana waa taan hore uga hadlay oo halkeedii bay taagan tahay aqoon ahaan iyo waxtar ahaan iyo haddii program dambe la rabo in laga qabtana cid nagala shaqeynaysa diyaar baanu